xaflad kulan wada tashiya oo isugu yimaadeen fanaaniinta kooxda qoto iyo madaxda TV-ga Universal ayaa waxay uga hadleen siday u sii dardargelin lahaayeen riwaayadda qoto gaar ahaan qaybta wacyigelinta bulshada. sidoo kale xaflad koomeedkani waxaa lagu soo dhaweeyay fanaaniinta kala ah Maryan Mursal iyo Nakruma oo ka mid noqdeen jilayaasha riwaayadda qoto. fanaaniinta halka ka hadashana waxaa ka mid ahaa Faynuus Sheekh Daahir, Maryan Mursal, Shaxshaxley iyo Xuseen Shire. aad baan idinku faraxsanahay intiina ka soo shaqaysay qoto iyo intii soo aliftay iyo intii filimka samaysayba annagu dadkii hore soo riwaayadaha dhigi jiray baan nahay. waxaa hadda maanta taniyada noo dhisay Abu Karmahadi oo maanta intaas oo fanaan isku keenay hooyadiis iyo walaalihiis oo maanta meeshaan alaab yaab leh noogu keenay. فنانيتا لو دعينا يا انت وقدرنا الهي وحنكبريان الى الشرف سلاس وقصي وذا شقيان markuu horeysa runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kooxda qoto mahad waxaanu ilaahay baanu salkaas ku kaygeen oo mahad iskale runtii waxa weeye waa maalin maalmaha kale ka duwan wad fanaaniintii waaweynaa wad arkaysaan oo waayo waba si ahaa inay meesha ka buuxaan runtii waxaanu u diyaar garownay oo aan diyaar u nahay in micnaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaanu isku dayno maadaama dagaal muddo badan ay ku jireen inay farxadooda inaan soo celino inaanu uga qayb qaadano sidaa darteed ayaan tabarucaad filimkaas u samaynay waxaan runtii mahadda iskale TV-ga Universal iyo Abu Karmahadi director وحواي وقت مسكحه هيرات هوينات مالك بيت مالك ما إلهي كوسو دوا أبو كربادي ما سكينا كان أنا غلط فرح سنة ولا ليالو فنانين أنا كود قط ملك مالي سه لا قط لسه على أودي بنو ما شاء الله مهمة إنتاج سواي sidoo kale xafladan intay socotay waxaa qadka telefoonka lagu soo dhaweeyay fanaaniinta kooxda qoto ee qaaradda adduunka ku kula nool. mar wax laga weydiiyay fanaanada Maryan Mursal riwaayadda qoto waxa ay tiri qoto waa shidan tahay anigu dadka filimada aad u fiirsada ma aan ahayn laakiin hadda sabab badan oo Jarmalka iyo Denmark markaan digay ilmihii yana kulli qof walba waa qoto leeyahay marka caadi ma aad baan u faraxsanahay in anaga fankii la soo celiyo iyo fanaaniinta riwaayadaha dhigi jirtay aad baan u faraxsanahay. erayada ay ku dhawaaqayeen fanaaniinta waxaa ka mid ahaa